ku bilownay laba masaajid oo ku yaala sida la sheegay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa dablay hubeysan ay weerar ku qaadeen iyada oo lagu guda jiro xilliga salaada Jimcaha. inta wararka hordhacaan helayna ay sheegayaan tirada dhimashada waxaa lagu sheegay ku dhawaad 6 qof. intaas ka badanna waxa ay tahay dad dhaawacyo ay soo gaareen. booliiska magaalada ayaa guud ahaanba magaalada bandow ku soo rogay waxaana la xiray iskoolada. dad badan ayaa waxa ay dareemayaan cabsi la xiriirta arrinka dhacay waxaase booliiska iyo hay'adaha amnigaba ay baaritaano ugu jiraan dableedii ka dambeysay falkaasi. haddaba Sahra Axmed oo kamid ah dadka Soomaalida ee degan magaaladaasi ku taala dalka New Zealand ayaan khadka telefoonka goordhow kula xiriiray. magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch waxa ku taala jasiiradda koonfur iyo waxa koonfur saasi ku taala magaalada waxa weeye dad muslimiin oo xooga away joogaan ilaa saameeyna 3,000 oo qof iyo ka badan marka waqtiga oo salaada duhurka noo ahayd maanta maadaama ay jimco tahay salaada jimca lagu jiray labada masaajidda mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday marna waxa la leeyahay laba nin ayaa jirta oo wax weeraray marna hal nin lama oga midna lama xaqiijin marka magaaladu waa xiran tahay lockdown lagu sameeyay iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogo ay leeyahay joogso waa gartay bal Sahra waxaad iga warantaa marka tiro dhimasho iyo dhaawac waxa aad maqlayso ama warbaahinta xataa la isla dhaxmarayo ilaa hadda lama xaqiijin laakiin waxa la sheegay 6 ilaa 10 qofood la sheegay laakiin hadalku waxa xaqiijinada waa hadallo kala duwan oo dadku ay wada sheegayaan marka laba masaajid oo ku yaala Christchurch ayaa weerarku ka dhacay labadaas ka dhacay mid weyn waa midka centralka ah oo magaalada warigiisa ku yaala midna wuxuu ahaa mid yar oo ku yaala xaafadaha kamid ah waa gartay marka labadooda isku mar miya weerarada ay dhaceen ma hubi ma xaqiijin kari taas laakiin waxay u eg tahay inay wixii isku mar dhaceen waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan cid loo xiray ama dawladdu waxay leedahay waxaad kala socotaan TV-yada ilaa hadda lama hayo dadkii waxa sameeyay qofkii ama dadkii sameeyay waxa gacanta lagu hayo soo marka wali magaalada ku jiraan waa sababta loo xiray in magaalada ma taqaano maadaama aan la soo qabanin dadkii waxa sameeyay magaalada way xiran tahay marka ragga weerarka geystay tiradooda ma la yaqaanaa laba masaajid maadaama ay wax ka kala dhaceen wallahi warkaas hadda lama hubo inay hal u kala aadeen inay labo taqaana hal mar inta mid weeraran ay kala aadeen wax hubo ma jirto qof hadda waxa waaye wax yar ka hor ay dhacday ilaa maxaa malaynaa 3 saacadood ka yar marka waxaan ay dhaceen marka anaga dhan waxa waa confusion aan hayo anaga waxa waa isku ma naqaan wax socdo marka wali xaalad waxa waaye maxaa la yiraahdaa ongoing waxa marka ma garanayo wax socdo waayahay bal marka Sahroy waxaad iga warantaa arrinta muslim naceebka miyaa jirtay oo tani sal u ah mase wax kala laga cabsi qabaa inay arrintan ka cisay horta lama oga ilaa hadda oo ma dhigi karno waa muslim naceeb laakiin yani dadku waxay soo qaadanayaan maadaama ay masaajid tahay in oo ay sidaas tahay maadaama xaaladda siyaasadda adduunyada ay ka kacsan tahay dadka yani automatically waxaa loo malaynayaa inay tahay xag diin ahaaneed laakiin ilaa hadda lama xaqiijin waa laga yaabaa inay tahay waa laga yaabaa inaysan ahayn waayahay marka wadamo badan oo Yurub ku yaala iyo meelo Mareykanka kamid ah ayaa masaajida la weeraray intaan ogahay Mareykanka gudihiisa dhowr gobol oo kamid ah bal marka waxaad iga warantaa ma ka jirtay arrinta la xiriirta muslim naceebka iyo wixii lamida deegaanka aad joogtid magaalada aad joogtid iyo guud ahaan dalka New Zealand wallahi dadka horta qofo waxbuu la kulmaa waqti horta ani shakhsiyan iyo dadka aqaana ma arkin wax arrimahaas wado laakiin wadankeena New Zealand waxa adduunyadu kamid yahay marka waxa waa runtii waa iska jiraan waxyaabahaas oo yani siyaasad ahaanta intaqaana islamophobia ay ka jirto waa iska jiraan marka qaar in yani la sheegay anigu aan arkin laakiin madaxda qaar la soo dhigay ama waxyaabo kale oo iska jira intaqaana laakiin waxa run ah in dawladda New Zealand iyo poliska New Zealand iyo dadka shacabka New Zealand aad u taageersan dadka muslimiinta ah muslimiintana ay yihiin dad ka tirsan wadankan oo ah wadaniinimo loo ixtiraafsan yahay oo marka lama dhigi karo muslimiinta waa la neceb yahay laakiin qof muslimiinta neceb kulli waa iska jiraa aad baad u mahadsantahay Sahroy adiga mudan waa hagaag Sahra Axmed ayay taasi ahayd goordhow khadka telefoonka
ee waddanka New Zealand magaalada Christchurch la yiraahdo oo weerar masaajid ay ka dhaceen ayayna iigu waramaysay.